didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule. bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo asbuucii loo jeer aad ka daawataan warbaahinta urwaal ee magaalada muqdisho. waxaan ku qaada dhignaa arrimaha siyaasadda, waxbarashada iyo caafimaad. haatan maanta waxaan ku qaada dhigi doonaa haddii eeba idmo maamulka hirshabeelle oo khilaafaad kala duwan uu ka jiro ayadoo maamulkaasi uu joogo xilli doorasho. waxaana igu marti ah maxamuud maxamed xasan jarmal oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada iyo sidoo kaleeto maxamed ibraahim sabadoon oo asna ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah. waxaa muddooyinkan dhan oo ka jiray maamulka hirshabeelle iyadoo la wada ogsoon yahay maamulkaasi inay ay doorasho xilli doorasho uu ku jiro marka khilaafaad fara badanaa ka jira. waxaa beelaha deegaanadaas oo hirshabeelle ay isku haystaan madaxweynaha iyo arrimo kaleeto. maxaa arrintaasi keenay iyadoo lagu guda jiro xilligii doorashada? bismillaah, aad baan u dhowahay. waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha iyo wariyaashaba ka howlgala warbaahinta walwaal ee magaalada muqdisho. haddii aan u gudagalo barnaamijkan ama mawduuca su-aalahan laka weydiiyey aniga walaalkay saaxiibka iyo maxamed ibraahim samadoon, runtii arrinta hirshabeelle markaad wax igu weydiiso aniga runtii waxaan is leeyahay fikirkayga markii aan cabiro inuusan wanaagsanayn waxa ka socda hirshabeelle. haddii ay sidaan kusii socdaan ay noogu koraan runtii wax oo faraha laysula tago oo la yidhaahdo dagaal siyaasadeed waxaa loo qeexi jiray afka iyo qoraal iyo midiya wax laysu mariyo, laakiin wuxuu noqon doonaa sida ay muuqato in faraha laysula tago ama uu dagaal ka qarxo. waxa ugu horeeyo oo mas-uuliyadda qaadi doono waxay tahay dowladda federaalka soomaaliya oo uu hogaamiyo mudane maxamed cabdulla farmaajo iyo mudane maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaaraha. runtii waxaan dhihi lahaa marka dowladdu faragelinta ka dayso maamulka hirshabeelle iyada iska taag daran, iyadaa khilaafo badan soo martay, dhibaatooyin badanay soo martay, haddana ma dul qaadan karto. shacabka hirshabeellena ma dul qaadan karaan dhibaatooyinka iyo faragelinta lagu wado oo laga sameysana waxay rabaan. marka waxaan dhihi lahay dowladdu ha ka dayso hirshabeelle, iyaduna oda dhaqameedyadeeda iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo iyo shacabka hirshabeellena ha isku dayaano inay dhistaan maamul loo dhan yahay oo runtii lagu qanci karo, saamilada siyaasaddana raaligeliya. intaasaan kusoo koobaya. maxamed sabadoon, maxamuud jarmal, khilaafaadka ka dhex jira hirshabeelle wuxuu yiri faragelin baa jira dhanka dowladda. muddooyinkan oo dhanna waxaa soo ifbaxayay khilaafaad siyaasadeed oo reer hirshabeelle ay ka cawanayaan. sidee u aragtaa arrintaas? bismillaah, marka hore maamulka iyo howlwaneennada tv-gan ugu mahad celinaha fursaddan ayna siiyeen. haddii aan u gudbo horta hirshabeelle, ani waxaa horta muwaadin hirshabelle kasoo jeeda ah. waa igaga xanuun badan tahay in aan falanqeyn markii wax la falanqeeya waxaa la rabaa inaad waaqica markaa jiro oo inaad tilmaamto. ani waxaan qabaa horta faragelin wax la yidhaha inaysan jirin. maxaa yeelay dowladda federaalka waa dowladdii hoos ima hayeen maamul goboleedada, khaasatan maamulka hirshabeelle. hirshabeelle waxay soo martay xaalad oo lagu soo dhisay iyadoo dalka aan ognahay oo xaaladda uu ku jiray. maanta waa ka duwan yahay. maanta qof walba wuxuu fursad u leeyahay inuu ka hadlo xawqaadka uu ku leeyahay maamulada qaar lasoo dhisay. waa aragteen. ani waxaan qabaa marka hirshabeelle inay tahay maamulka ugu wanaagsanaa inuu hadda ka dhalan rabaa ila tahay. maxaa yeelay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaaw waa shaksiga maanta la dhihi karo ardayga hirshabeelle kasoo baxay. runtii waayin badan wuxuu kasoo shaqeeyey
وقف كلية ما أنت اللي كره وحنو صاع هيرشبيل أسجن ويا أمسن هاي وقدومي قول طاري شبيل هذا ده أو قبل كم ده هيرشبيل قبل هذا كقوبة تاعي وهم دحين كحرينكي وهذا أنا أمسن هاي إنه جعلها إنه مامل كدم بيو هدي أكو قول استنى إنه معركتي وحقبض دون أجيها معنا هيرشبيل وحي أباهنته وحندي لها ولالكي جرمل horta wax faragelin liir anaga shisheeye faragelin waxa la wadankaaga markii ay shisheeye wadamo shisheeye ay soo faragelinayaan dawladda federaalkan waajiba ka saaran waxyaabaha loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay ka mid tahay inuu ummadan u noqdo qoortay u dhaxaysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana ay kuma aftirsada Hirshabeelle laakiin waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa waajib saaran ilaa inta uu kursiga fadhiyo ra'iisul wasaarahana hadda kulli ra'iisul wasaare Roble uu cusub yahay waa asiga yaaba hadda wili xukuumaddiisa hadda ku dhawaaqay waxayna sugayaan in maaragtay la urgay baarlamaanka waxaan leeyahay aniga Hirshabeelle waxay ku socotaa wadadii saxdeed oo markii la rabayba in la marsiyo tan kaleeto Hirshabeelle waxay ka dhaxaysaa bulshada ka dhaxaysaa oo laba gobol labadaas gobol bulshada deganaan hadda joor way ku wada dhan yihiin waxaan aaminsanahay marka aniga Hirshabeelle inay ku socoto wadadii saxdeed sabadoon maysan ku muuqan maal dhowto beledweyne dad baa waxay ka cabanayeen yani maamulka loo dhisay laga dhisay Jowhar dadka shacabka oo deegaanka ah cabashada dadweynaha ka soo dhaxyeeraysa miyaysan ku muuqan mase waxa kaliya ay ku muuqato inay dawladii yani meeshii ay ka tahay iyo dawlad ka tahay oo systemkii doorashooyinka ay dawlad ay hirgelinayso horta waa run oo beledweyne way ka dhaceen shacabka reer Hirshabeelle حق اللي دمان موادين تهري الشباب إنه موجان ترين كود إنه موجان حقولنا هاي شعب كنا ما أنت حي تبص عدان قاركود أفكار تمارك هذا مدحوني هو رير الشباب بوست أنا كأقري وصادق وحكم ده غير هيران وكع أنا حاسلا معناها وحوي هذا الكي أو قصة قري مدحوني هو رير الشباب ay ka mid tahay waxa lagu soo banaabax laakiin ilaa ma aha in Hirshabeelle wanaagsan dadkaas loo soo bixiyay laakiin Hirshabeelle inay maaragtay wada qaldan qaado in loo soo bixiyay ila tahay cidda aaminsan inay Hirshabeelle horumarta noqoto Hirshabeelle raacada wadadii galmudug mana maamulka hadda galmudug ka dhismay waa wada ognahay waxa la isdhahay wuxuu noqonaa maamul oo maaragtay la dhistay maamulkana maanta waa aragnaa waxa maaragtay dawladda dhismeed oo ka qayb qaata marka Hirshabeelle maanta waxay u socotaa wadadii saxdeed waxaan aaminsanahay in la wada maaragtay la taageero hadii la taageerana wax wanaagsan ka imaan Maxamed Jarmal samadoon wuxuu leeyahay Hirshabeelle waxa doorasho fiican oo dadka shacabka deegaankaas ayaa ka dhacaysa marka arintaas soo aragtaa fargelinta aad ku sheegtay dawladda federaalka inay fargelinsana yani wuxuu yiri dawladda ayaa shaqadaas ayada leh inay maamulkaasi ay dhisto inay ay arrimaha doorashooyinka ay hirgeliso sayay kula tarintaas horta runtii walaalkay aad buu mahadsan yahay marna saaxiibkay ah in badan aan ka sheekeysano arrimaha siyaasadda dhanka dawladda marka aan soo aado runtii dawladda waxa la rabay inay wixii wanaaga meesha ka socdo ay kor joogto noqoto balse iyadu inay wax ku sii dheesho ama ay wax ku sii wax iyaga iska taag darana in haddana sii kusii tuurto meel kale oo kasii daran runtii ma ahayn dhanka Hirshabeellena 4 sano la soo dhaafay oo 16 ka soo bilaabato ilaa hadda runtii maamul waxay noqdeen ba aan runtii shaqada laga sugay xitaa iska daayay mid oo macnaha ha noqoto mid oo inay iyaga soo saaraan mid laga sugay laga waayay 4 sano waxay u soo dhamaatay mugdi 4 sano soo socotaanay waxaan qabaa sida ra'yigu uu yahay ama shakhsi ahaan ani waxay ila tahay in niman kale jaanis la siiyo shakhsiyaadka soo bixi doonana ay samata bixiyaan shacabka reer Hirshabeelle faragelinta dawladda markii lagu leeyahay ma ahan kaliya wadan shisheeye inuu ku farageliyo laakiin adiga meeshii aan mas'uul ka ahayd lagugu ogaa lagu wada xisaabtamay hadii lagu soo galay san adu wado waa qaladantay san wad lagu dhaw faragelin waay laakiin faragelin lama dhigi kara kaliya shisheeyaha Hirshabeelle hadda dhibaato haysato xilligii 2016
nabadoonadii iyo siyaasiyiintii waxgaradkii wax kasoo dhisay hirshabeelle. Hirshabeelle markuu lagu leeyahay waa laba gobol, waa gobolkan la yirahdo hiiraan iyo gobolka la gobolka shabeellada dhexe, oo runtii siyaasiyiinta iyo nabadoonada iyo waxgaradkaba ay ka heshiiyeen hirshabeelle sidii wadada saxda ay ku heli lahayd. marka aniga ma qabo maanta in wado kale inta loo mara la yiraahdo wadatii tii hore ka saxan ayaan keenayaa saanyeel aniga go-aanka iskale. runtii ma ahan, taasuna waxay u eg tahay inay noqon doonto tii ka dhacday baydhaba koonfur galbeed. marka runtii aniga waxaan leeyahay hirshabeelle dhibaato ka socoto, dhibaatadana waxaa mas-uuliyadda leh oo arrintaas ku lug leh dowladda federaalka ah oo la raba inay dhexdhexaad ka noqoto. hirshabeelle wax fiican kama muuqdaan, maamul wanaag iyo dhibaatooyin aan isqaado karin aan meesha ka muuqdo. marka dhan amni loogu tashamaayo, dhan maamulka loogu tashamaayo. 4 sano soo dhaafna haddii mugdi ku dhamaysteen 4 sano soo socotana mugdi kale runtii dadku ma dul qaadan karaan. shacabka reer hirshabeelle waxaan ugu baaqaya runtii inay ka fikiraan aayahooda iyo wadada saxda sidii ku heli lahaayeen. haddii ay dadaalaan way helayaan, waana rajeynaya inay heli doonaan. maxamuud jarmal, miyaysan ku muuqan yani dowladda federaalka soomaaliya inay ka tahay dalka iyada mas-uuliyad ay ka tahay inay maamul goboleedyada iyada dowladda ay dhisto sida maamul goboleedyadii horeeto galmudug, koonfur galbeed, horumarkaas dowladda ay samaysay, miyaysan ku muuqan? runtii aad iyo aad u mahadsan tahay. haddii arrintaas aan u gudagalo min degmo gudoomiye waxaad ilaa madaxweyne, dalku wuxuu ku dhisan yahay qabaa'ilkaas ha ku dhisnaado. balse dowladda federaalka ah waxaa la rabay maamul goboleedyada inay dhexdhexaad u noqoto oo kii wanaagsanna wanaagga ay ku taageerto, mashaariic horumarineedna ay geyso. aayaha maamul goboleedkaas haddii mas-uuliyiinta mas-uulka ka ah maamul goboleedkaas hadduu fiicnaado inay wanaagii ay haddana kusii dhiirigelin rabo oo encouragement ay siiyaan. laakiin haddii la dhaho aniga dhisa anaga go-aanka iskale, hadda dowladda wax kale oo aan ku eedeyna ma jiraan. eedda ay leeyihiin oo aan u jeedina wax kale maahan, waxay tahay wadadii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hore soomaaliya ee 4 sano soo hayay 2012 ilaa 2016 soo hayay, ama aan dhaho 2017 soo hayay. wuxuu dhisay maamul goboleed, wuxuu dhisay dantiisa uga dhex eeganay maahane dan soomaaliyeed ma eegeynin. dantaas u eegana waxay ahayd siduu kusoo laaba lahaa. marka mas-uuliyiinta hadda dowladda ugu sareyso waxay ka fikiraysaa sidii kusoo laaba lahayd. marka maamulkan inay dhisto sax ka maahane danteeda ay ka dhex eeganaysaa, faragelintu halkaasi ka imaanaysaa. marka jarmal wuxuu leeyahay yani faragelinta dowladda ay ku hayso hirshabeelle yani maadaama dowladda federaalka soomaaliya ay u dareereyso xilli doorasho oo xataa hay-adaha dowladdu ay waqtigu go-aas u yahay, yani dana siyaasadeed hadhow ay rabaan sidii ay uga kaamigari lahaayeen oo ay baarlamaan iyagu ay markaas codka ay ka helaan si ay uga soo bixi lahaayeen. faragelinta halkaasi ka socotaa, maxaa ka jira arrintaas? horta waxaa la yidhi soomaalidu waxaa la yidhi male dembi leh dembina cadaab laha la yidhi. oo horta dalkaa doorasha inuu aadayo laba isweydimayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa ku dhawaaqi, maamul goboleedyada iyo maaragtay kolley mucaaradkana waa aaminsan yihiin, waa ka warhaysaa. waxay u aaminsan yihin waxaa waaye inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalka doorasho u diray. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajone waajibaadka saaran waxaa waaye in intas oo u imaadana oo sidooda ku hayo, intii oo ku daraayan oo ku daro. ani waxaan qabaa dowladda hadda jirta madaxweynaha uu ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in horta aan la amaano inay leedahay, because corruption laguma sheego. markii la leeyahay dansi oo maaragtay inay soo noqoto ay leedahay, madaxweynaha jamhuuriyadda inuu soo noqdo horta shacabka soomaaliyeed waa u diyaarsan yihiin, waa rabaan. hortaas taasaa ka leeya walaalkii oo ka qancaya oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka haduuba aaminsan yahay inuu soomaali sii hogaami karo, waajibaa ka saaran inuu ummaddaa soomaaliyeed 4 sano kaleeto oo ku dadaala sida uu kusoo noqon lahaa. tan labaad waa waajib oo dalkan wuxuu u baahan yahay hogaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano soo socoto. hirshabeelle marka aadno hirshabeelle maxamed cabdullaahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka shaqo kuma maba dhex taagnaba oo madaxweynaha waxaa ka rabay meesha uu ka dhahayo
madaxweyne maxamed cabdullaahi dowladii afar gashay soo madaxweynihii inuu soo noqdo ee la rabaayo waxaa rabay su-aashiisa inuu ka dhigo madaxweynaha ma tegiyo jawhar ma tegiyo inuu horta su-aashiisa taas ahtaa jeclaada laakiinse intaan ku wari jawhar waa inaan aan mid aan ku darsado hal mid aan inaan ku darsado inuu soo noqdo ma aha macnaheeda maamulka hirshabeelle inuu farigeliyo ma aha waajibaa ka saaran dowladda dhexe iyada la-aanteedna maamulka hirshabeelle ma dhismayo waa ognahay hirshabeelle in lagu soo dhisay musuq maasuq maanta dowladda jirtan waxay u taagantahay inay hirshabeelle xalaala dhista waana socotaa shaqadeeda waxaa cabasho waxay ka muuqataa in la isku haysta madaxweynihii oo beelaha kasoo jeeda hirshabeelle inay isku haystaan madaxweynihii oo ay leeyihiin beel hebel madaxweynaha awl u askaysnayd haddana beel kale ku qabsatay arrintaas maxaa keenay arrintaas haddii aan inaan ka jawaabo soo laabto runtii dhibaatada jirta ama faragelinta jirto waxaa ka dareemeysaa 2016 nabadoonada kasoo jeeda iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe waxay ku heshiiyeen wax la wada ogyahay dastuuri maahayn laakiin waxay qorteen oo meel u yiilay oo ku wada tashanayeen balse maanta daliira marka dad idinka fiicanaya midoo shakhsiyaad gaara oo bedeli karaa imaada hadii la yiraahdo runtii waa arrin xun oo ayna dadku qaadan karin marka aniga waxaan leeyahay hogaanka hirshabeelle horaa loogu heshiiyey hirshabeelle waxay dhisan tahay 4 sano oo one man date ah marka aniga waxaan dhihi lahaa runtii labada gobol dadka dego iyaga ka tashan karo horena ugu soo ku heshiiyeen macnaha sidii mas-uulka u sareeya ama madaxweynaha hirshabeelle cidii qaada leh ama beesha qaada leh horaa loogu heshiiyey marka hadda maanta inuu isku wareero lama rabo waxa maanta wararka kale waxay tahay marka danta dowladda federaalka ee ka dhex eeganayso hirshabeelle dhibka ugu weyn waa kaas marka aniga waxaan dhihi lahaa runtii waxgaradka hirshabeelle iyo shabeellaha dhexba kasoo jeeda waxay ka walaacsan yihiin dhibaatada halka ka socoto dhibaatada halka ee wax kale maahan waxa la rabaa wixii lagu heshiiyey 2016 4 sano ka hor wixii lagu heshiiyey in maanta la baabi'iyo la yiraahdo maanta maamulka saasa loo kala qaadana oo saani noqonaysa dadkuna ma aqbali karaan caqabadaha ka jira maamulka shabeelle iyadoo lagu gudi karo xilli doorasho si caqabadahaas loo gudi karo adoo soo koobayo waxaan jeclaan lahaa inta meesha su-aasha ay weydiisay inaad daba ka cidhaado laakiin caqabadaha aan ka hormaraa hirshabeelle caqabadaha ka jira oo amni hirshabeelle bulshada hirshabeelle anigu beel dhihi maayo dadka reer hirshabeelle dastuuray ku heshiiyeen dastuuraa ka dhexeeya kaasaa u tilmaamaya sidii wax ku dhisan lahaayeen caqabadaha cidda ugu horeysa ee waajib ka saaran tahay la rabo inay wax ka qabato horta dowladda dhexe waay qorshaha hadda socdan waxaa ka mid a xukuumadda cusub ee hadda dhowaan wasiiradeeda la magacaabay ee baarlamaanka federaalka la horgeeyahay oo ugu horeeya wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha waxyaabaha ay ka shaqeyn doonaan hirshabeelle oo inay hirshabeelle amni hesho hirshabeelle inay maamulkeedu shaqeeyo waxaa ognahay stateku waxaa waaye hoos imaada dowladda dhexe insha allah hadduu alla idmo dhawaanna waa bilaaban doontaa caqabadaha waa jirtaa in madaxweynaha la yiri beel madaxweynaha madaxweynaha hirshabeelle u gaartaa in la yiri heshiis anigu heshiis ee beelaha dega amba dadka dega ee maaragtay hirshabeelle ay iskugu imaadeen ee dheen reerkaasa aniga noo ah madaxweynaheena aniga ma maqal mana akhrin laakiin waxaa akhriyay dastuur ay ku heshiiyeen kaasna uu yahay midkii hore maaragtay wax ku wadaagi lahaa wax ku qaybsan lahaayeen waa aaminsanahay in ay jiraan caqabado laakiin caqabadaha waxaan aaminsanahay iyada naftigeeda in la dhaho si kalena ha loo fasiro maamulkii hore ee jiray waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenka cali guudlaaw oo maanta waajibaadkiisa gudahayo iyo madaxweyne waare oo asagana ay guddiga hadda shaqeyhayo oo soo magacaabay inay raalli ka yihiin in ay ka tagaan maamul hadda waxaa maqlaa cali guudlaawa madaxweynaha isku sharaxaya cali guudlaawa raba cali waa madaxweyne ku-xigeen ma aha musharax banaan ka taagan oo dowladda ee wadamaha waa madaxweyne ku-xigeen haddii uu ku guulaystana
waa aaminsan yahay qaladaadka jira iyo waxyaabaha inuu sax oo rabay kamid ah haddii ku guuleysan waayana inuu maamul ka dambeeyo intaas aaminsanahay maxamed jarmal saxiibkay wuxuu ku leeyahay ninka la yiraahdo maxamed jarmal wuxuu mucaarad ku yahay dowladda federaalka ama sidoo kaleeto madaxa ku-xigeenka hirshabelle marka caqabadaha ka jira hirshabelle oo siyaasadeed sidee loo gudbi karaa caqabadaha ka jira siyaasadeed oo ay uga dhalan kartaa maamul dadweynaha deegaankaasi ay ku wada qanacsan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada horta waxaan rabaa intaan su-aasha weydiin inaan ka jawaabo su-aashii saaxiibkay oo ahayd ama eedayntii usoo jeeday oo ahayd inaan mucaarad ah mucaaradka horta soomaalidu waxay ka aaminsan tahay inuu wax burburiyo kaliya laakiin mucaaradka qaar way jiraan iyagana u isticmaalaba inay wax burburiyaan oo mucaaradka markay maqlaan iyagu mucaarad noqday ama xisbiyo mucaarad amba samaystay oo iyagu xumaan maahee wanaag uusan u muuqanba mucaaradku sidiisaba waxbuu dhisaa wax ma dumiyo waxaana loo baahan yahay inuu wanaaga taageero xumaantana uu diido oo dowladda uu dhaho saan ma haysaan waay oo dhanka wanaagga mar walbaba uu xaflayo marka mucaaradka anigu horta mucaarad mihi laakiin waxaa raba wax wanaagsan inay soo baxaan dowladdana kuma yihi hirshabeellena kuma ahan ciidan ku ahna ma jirto dalkaygana waxaan rabaa aniga inuu hormaro maahane inaan dhibaato ama inaan hoos ka cuno uma baahni mana isle runtii waxba intaa kaa galo inaad wax mucaarado aada wax ku helaysaa ismalihi su-aashaad weydiisay oo ahayd caqabadahaas iyada loo gudbi karaa caqabadaas waxaa loo gudbi karaa arrimaha jiro oo ah qol mugdi in wax lagu qaybiyo in la joojiyo shacabka reer hiiraan iyo reer shabeellaha dhexe ayay hirshabeelle ka dhexaysaa dadka deegaankaas dego iyagaa aayahooda yaqaano iyagaa ka tashan karo iyaga halaysku daayo iyagu ha tashadaano waxgaradooda nabadoonada siyaasiyiin kasoo jeedo hirshabeelle ay leeyihiin marka aniga waxaan qabaa runtii 4 sano siduu ku dhisnay dowladda hirshabeelle stateka hirshabeelle la yiraahdo siduu ku dhisnaa inay kusoo laabtaan aan macnaha jeclaan lahaa aniga ra'yigeyga markaan cabiro marka caqabadaas waxaa loo gudbi karaa in iyaga loo daayo la yiraahdo siyaasiyiintiina waxgaradkiina nabadoonadiina shalay sidaad kusoo dhisteen ayaa maantana diyaar idinkuun hayna idinkuu dhisno wanaagana lagu taageero maxamed sabadoon barnaamijkii waa meel gabagabo maxaa xal ah oo loo gudbi karaa caqabadaha jira xalka waxaan horta aan ka codsan lahaa maadaama barnaamijkan waa gabagabo waxaan rabay walaalkay wuxuu yidhi halka meelaha halka waqtina siis waqtigan uu yar waa ogahay laakiin waxaan rabaa in yar waqtiga labaatan waa soo kooba jaanis inaa saaray walaa meelaha halka anan in aan ku horumarin waxaan rabaa horta midaan sheeg horta dowladda dhexe iyadaaba golihii wasiiradii xukuumadda soo dhisays hirshabeelle ma dhex taagna dowladda dhexe maamulka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiyihii baarlamaanka odayaashii dhaqanka hirshabeelle aljeeri jooga wax dowladda la yiraahdo oo dowladda dhexe ma joogo horta dowladda dhexe ee laga dhigaa ulcogsiga mucaaradka qaar waxay isticmaalaan dowladda dhexe iyada dalkan mas-uulka ah halka marka aado hirshabeelle waxay u baahan tahay maamul ay dhistaan dadkeeda wax walbana aas-aasay leeyihiin aas-aaskeedana way haystaan reer hirshabeelle dastuuray leeyihiin waxbaa meel ugu yaal waxaas ugu yaalayna rabaan adwaale inay dhawaan ku dhistaan halka hirshabeelle wuxuu ku jiraa in la isku tanasulo la raaco masiirka reer hirshabeelle wixii dan ugu jiro hirshabeelle waxay u baahan tahay maamul ka samata bixiya marxaladda ay ku jirto waxay u baahan tahay maamul waa aragtay fatahaadaha hirshabeelle keliya waxay u baahan tahay amnigaas iyo mashaariic biyahaas fatahaada wax loo qabto insha Allah hadduu alla idmana dhawaan dowladda lasoo dooran doono xukuumadda oo maamulka hirshabeelle waxyaaba ay ka shaqeyn doonto kow ka tahay oo cali guud laawan oo maaragta oo qorshihiisa kow ay ka tahay dhawaan oo maaragta oo cadeyn doon musharaxnimadiisa taasi kamid ah waqtigan ugu yar sharmal maxaa xala oo loo gudbi karaa caqabadaha haysta maamulkaasi ayadoo lagu guda jiro xilli doorasho waa su-aashaas waa nagu soo laabatay laakiin jaanis kalena helay waxaan rabaa inaan kuu sheego cali guudlaawe waa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle maxamed cabdiwaraab waa madaxweynaha runtii aniga sida hadda ay ku dhisan tahay
inay ku dhisnaato 4 sano soo socota isaas ku dhisnaataanba aan doonayaaba waxaana sidoo kale aan ku talinayaa ama aan jeedinayaa in looga haro nabadoonada iyo waxgaradka kasoo jeeda Hirshabeelle dawladuna ay dhexdhexaad ka noqoto dawladdu iyada hadda xukuumad dhisanayso aysan ku mashquulin maamul goboleedyada iyo dhismahooda marka loo daayo reer Hirshabeelle iyaga wanaagooda yaqaano Hirshabeellena iyadana waxaan ugu baaqayaa maadaama arjayna inay dhismi doonto oo sida loo baahnay u dhismi doonto waxaan ugu baaqayaa inay 4 sano oo mugdiga ahayd inay ka soo gudubto oo 4 sano oo guulaysan 4 sano oo aan soo dhaafnay waxay noqotay 4 sano mugdi ah oo waxba loo qabo Hirshabeelle oo iyaga dhan iska tabaalaysan 4 sano soo socota waxaan rabaa marka ama dhalinyarada Soomaaliyeed hadii aan u hadlo waxay rabaan Hirshabeelle oo dhisan oo wanaagsan in la soo saaro dawladuna waa ka rajeynaya iyaduna inay ku taageeri doonto wax wanaagsan maxamed samadoon maxaad ku soo gabagabeyn lahayd waxaa ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyarada in fursad loo siiyo maamulka hadda la dhisi rabo Hirshabeelle dhalinyaradu waa dhaxalka dalkan iyaga hoggaanka mustaqbalka ah inay dhalinyarada helaan fursad aan ku soo gabagabeyn lahaa oo aan baaq ugu diraa bulshada reer Hirshabeelle maamulka ay dhisayaan inay muhiimad ka siiyaan dhalinyarada ayna maaragtay noqoto doorasho furan oo qof walba oo maanta Hirshabeelle ka soo jeedo oo muwaadiniinta Hirshabeelle inay maaragtay u tartamaan madaxweynaha Hirshabeelle oo mid open noqdo taas aniga aan kula dardaarmi lahaa Hirshabeelle si gaar ah waxaan u mahadcelinahay TV maxamuud Jarmal waxaan qayb dambe ugu dambeeyay yaa soo gaarnay barnaamijkeena maxaad ku soo gabagabeyn lahayd horto waxaan ku soo gabagabeyn lahaa Hirshabeelle oo dhisan inaan aragno shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin mas'uuliyad waxay u baahan yihiin mas'uuliyiin runtii ka baahi tira arrimaha taagan oo ugu horeeyo amniga oo ku xigto in deegaanka la dhiso in isla xisaabtan oo imaado isla xisaabtan oo dawladnimo ah oo la tuso shacabka Hirshabeelle in loo shaqeynayo loo maqan yahay in la tuso in doorashadu ay ku dhacdo qalaas la'aan iyo dhibaato la'aan inay ku dhacdo dadkaasna mas'uuliyadda loo qaaday waa la xisaabin doonaa marka ani waxaan leeyahay runtii la iska ilaaliyo xaqa shacabka iyo dadka loo hayo mas'uuliyadda iyo dadkii u dhiibtaba Hirshabeelle waxaan leeyahay dulmiga iska diidi leen ku wado wanaaga shakhsiyaadka ama dadka kale oo idin wadana ka qaata marka waxaan sii raaci lahaa in dhalinyarada Soomaaliyeedna jaanis loo siiyo inay maamuladii qayb ka dhisaan madaxweynaha hadduu noqon lahaa ku-xigeenka hadduu noqon lahaa golaha baarlamaanka weliba sharci dejiyaasha way ku wanaagsan yihiin dhalinyaradu maadaama ay wax baratay marka intaasan kusoo gabagabeynaya waxaan u mahadcelinayaa TV-ga walwal qaybtiisa magaalada Muqdisho waxaa inta aan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeennii waxaana igala qayb galay maxamuud maxamed xasan Jarmal oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah iyo sidoo kaleeto maxamed ibraahim samadoon oo asna ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah labaduba waxay falanqeeyaan siyaasadda Soomaaliya sidaas iyo nabadgelyo didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule